السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبada qiimaha badan oo ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha fadlan hadii janaalka aad ku cusub tahay subscribe kambalelkana riix si aad u noqoto mar walba daawadaha ugu horeeya ee soo gaara fariimaha ciyaaraha kuwadii ugu dambeeyay. Waxa la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan qaar ka mid ah horyaalada Yurub aynu ku horeynay horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Premier League ayaa kulamadii dhacay waxa ka mid ah kooxda kubadda cagta Everton ayaa guul daro gurigeeda kala kulantay kooxda Newcastle United oo kaga adkaatay 2-1 halka Crystal Palace hal gool kaliya kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Wolverhampton Wanderers. Manchester City gool kaliya ay laqsisay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. West Bromwich Albion iyo Fulham waxa ay ku wada heshiiyeen barbaro 2-2. kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester United oo kulankii adkaayndhaha lagu hayana waxa uu ku soo gabagaboobay heshiis ah ever. soo kale kooxaha kubadda cagta Southampton iyo Aston Villa oo kulan ciyaareedkii ugu dambeeyay ee la ciyaaray waxa ay ku soo ilaatay hal waxba ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Aston Villa. horyaalka liigaha wadankaasi Isbaanishka kulamadii kale laga ciyaar waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Sevilla ayaa 2-1 kaga adkaatay kooxda Eibar halka Real Madrid gool dara gurigeeda lagu biday ay kala kulantay kooxda kubadda cagta Levante oo 2-1 ku dubatay. Valencia ayaa 1-1 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Elche. Villarreal iyo sidoo kale Real Sociedad ciyaartoodu waxa ay ku soo gabagaboodeen min gool iyo gool. horyaalka sanada wadankaasi Talyaanigana kulamo aad u xiiso badan ayaa asna laga ciyaaray oo Bologna ayaa marka gooldaro 2-1 kala kulantay AC Milano. Juventus ayaa Sampdoria gurigeeda ku dubatay oo 2-1 kaga soo adkaatay. Inter Milan 4 gool ayay laqsisay kooxda kubadda cagta ee Benevento. kulamadaasi waxay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah horyaalada ugu caansan ee Yuruba. wararka kale ee suuqa kala iibsiga ee ciyaartooydana waxa ugu xiisaha badan ciidanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milano ee Lautaro Martinez ayaa markaa ku dhawaaqay inuu aad ugu faraxsan yahay in uu wax weyn ka bedelo hadafkiisa ahaa inuu isaga dhaqaaqo garoonka kooxda kubadda cagta Inter Milano. sanadkii ugu dambeeyay ayuu laacibkani waxa uu ololeynayay guud ahaanba inuu ka dhaqaaqo horyaalka dalkaasi Talyaaniga waxaana ciidankani aad loola xiriirinayo kooxda kubadda cagta Barcelona laakiin hadda ayaana markaa ciidanka uu ku dhawaaqay inuu aad u xiiseynayo laacibka inuu ku sii sugnaado istaadiga kooxda kubadda cagta Inter Milano tan iyo sanadka 2024 maadaama heshiiska waqtiga kan xaadirka Lautaro Martinez oo kooxda Inter Milano ka haysto ay markaa gaarayso tan iyo bisha June ee sanadka 2023 laakiin ciidanka ayaa doonaya tan iyo sanadka 2024 inuu baaqi ku sii noqon doono garoonka San Siro ee kooxda kubadda cagta Inter Milano. natiijo walba laacibkan u dhashay wadankaasi Argentine ee Lautaro Martinez ayaana guud ahaanba meesha ka saaray hadalheyntiisii ku aadaneed inuu u dhaqaaqo istaadiyaha Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona. tobraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa markaa xusaya in ciidankiisa ee Brandon Williams uusan ka dhaqaaqi doonin xil ciyaareedkan istaadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United. ciidankani ayaana labadii toddobaadii ugu dambeysaba waxa aad u xiiseenayo kooxaha kubadda cagta Newcastle United iyo Southampton oo aad markaa u doonayay inay si amaah ay kala soo wareegaan kooxda uu hogaaminayo macallin Ole Gunnar Solskjaer ee Manchester United. xidigani ayaana si weyn u soo jeetay qaab ciyaareedkiisa tobraha kooxda Manchester United sidaas darteed waxa uu xusay laacibkani inuusan si nabad kaga dhaqaaqi doonin kooxda Manchester United. waxaana laacibkani ee Brandon Williams uu ka mid yahay da'yarta waqtiga kan xaadirka sida weyn ee markaa ugu soo ifay mustaqbalka kooxda Manchester United waxaana guud ahaanba laga hakiyay qorshihiisa ahaa in uu xilligan ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Manchester United. ciidanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ousmane Dembele ayaana guud ahaanba doonaya inuu ku sii nagaado istaadiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Nou Camp. wararkii ugu dambeeyay ee hadalhaynta ciidankaasi Ousmane Dembele ayaa wax weyn iska bedelaya sidaba ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta wadankaasi Isbaanishka. xidigan u dhashay wadankaasi Faransiiska Ousmane Dembele ayaa la xusayaa inuu aad u xiiseynayo inuu waqti kale ula sii qaato kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo ciidankani aad loola xiriirinayo kooxo ay ka mid yihiin Manchester United, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Piankner Juventus. xidigan Ousmane Dembele oo heshiiskiisa kaga harsan tahay 18 bilood ayaana markaa doorbidaya in uu ku sii nagaado kooxda kubadda cagta Barcelona waxaana hadda uu doonaya in arintaas uu ka dhaadhiciyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ousmane waxa uu diidan yahay inuu isaga dhaqaaqo xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta Barcelona balse kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa wali ku taagan hadafkeeda ah inay guud ahaanba iska iibiyaan xidiga Ousmane Dembele maadaama uu yahay laacib dhaawacyadiisa ay aad u soo laablaabteen. hadda
waxa ciiraankaasi Ousmane Dembele oo isna uu doonaya rajo weyn uu ka leeyahay in maamulkiisa uu ka dhaadhiciyo inuu ku sii nagaado kooxda kubadda cagta Barcelona xitaa inta laga gaariyo 18 bilood ee mustaqbalkiisa kaga harsan heshiiska kooxda kubadda cagta Barcelona. kooxaha kubadda cagta Chelsea, Juventus iyo Manchester United ayaa ilaa iyo hadda ah saddexda kooxood ee bartaameedka muhiimka u ah xidigaasi Ousmane Dembele. difaaca kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa markaas ku diyaarinaya guud ahaanba inuu u dhaqaaqo staadiyaha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Old Trafford sida ay daawacday jirada The Mirror. xidigan u dhashay wadankaasi Isbaanishka ee Sergio Ramos ayaana markaa guud ahaanba lagu wargeliyay inuu isaga dhaqaaqo staadiyaha Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid. لاعبكani ayaa mustaqbal aad u wanaagsan ba la soo qaatay kooxda kubadda cagta Real Madrid tan iyo sanadii 2005 markii uu soo cagdhigtay kooxdaasi, balse heshiiskiisa wuxuu ku egyahay xil ciyaareedkan oo kaliya. xidigani Capitano Sergio Ramos ayaana markaa aad u doonaya haddii uu isaga dhaqaaqo staadiyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid inba uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ah dooqiisa ugu horeeyay uu doonayo inuu markaa cagdhigto. rajo weyn ayaan ka leeyahay mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Manchester United. waxaan diyaar u ahay inaan markaa wada shaqayn xoogan dhaxmari doonto aniga iyo qaar kamid ah saaxiibadana ku leeyahay staadiyaha kooxda Manchester United. haddana waxaa la soo warinayaa Sergio Ramos ma diidi doono haddii dalabyo rasmi ah uu ka soo gaaro Manchester City iyo kooxda kubadda cagta Liverpool, balse hadda shakhsiyanba xidigaasi Capitano Sergio Ramos kaliya wuxuu doorbidayaa in uu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United. xil ciyaareedkani United-ka ayaa rajeynaysa in arinta dalabka ciyaaryahankaasi ay markaa kala soo wareegaan kooxda kubadda cagta Real Madrid maadaama suuqa xorta uu kaga soo dhaqaaqi doono kooxdaasi. labada kooxood ee kala Manchester City iyo Liverpool ayaa iyana dhankooda waxa ay xusayaan in rajaba ay ka leeyihiin Capitano Sergio Ramos. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaana markaa doonaysa inuu dhaqaaqdo ciyaaryahan qiimihiisa marka uu gaarayo 60 milyan oo pound, taasi oo ay markaa ka doonayaan inay kala soo wareegaan kooxda kubadda cagta Sevilla ee ka dhisan horyaalka La Liga wadankaas Isbaanishka. warbaahinada qaar ayaana markaa xusaya in tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer uu aad ula dhacay qaab ciyaareedka 22 jirkan, difaaciisu aad u wanaagsan yahay. Jules Koundé ayaana markaa lagu tirinaya inuu ka mid yahay da'yarta difaaca aadka ugu wanaagsan ee wacyigan cusub markaa ka soo dhex muuqanaya horyaalka wadankaasi Isbaanishka. ciiraankani Koundé ayaana markaa sidoo kale lala xiriirinaya kooxa ay ka mid yihiin Bayern Munich, Juventus iyo Real Madrid, balse maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaaba doonayaba inay ciiraankaasi ka dulqaadaan kooxahaasi waaweyn ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub. marba haddii ba fargelin xoogan ba ay ku wadaan ciiraankaasi Jules Koundé, kooxaha kubadda cagta Bayern Munich, Juventus iyo Real Madrid, Manchester waxay kalsooni weyn ku qabtaa inay dhammaystirto heshiiska ama dalabka kooxda kubadda cagta Sevilla ay ku doonaysan ciiraankooda marka ay ku xireeyaan oo gaaraysa 60 milyan oo lacagta pound ee dollar ahaan u dhiganta 82 milyan. waxaana hadda tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer uu kalsooni weyn ku qabaa in ay dhammaystiri doonaan heshiiska ciiraankaasi maadaama Sevilla 60 milyan ay markaa doonayso inay ciiraankaasi ku fasaxaan, halka macallinka kooxda Manchester United-na uu doonayoba inuu aad u adkeeyo qaybtiisa dambe ee difaaca. ciiraanka dib ugu soo laabtay muddo sanad iyo bar kadib kooxdiisa Roma, Stefan Al-Sharawi ayaa yiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaan mar kale dib ugu soo laabto hoyga Olympico. ciiraankan Stefan Al-Sharawi ee ka dhaqaaqay sanadii 2019 ayaana markaa u dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Shanghai ee horyaalka wadankaasi Shiinaha. haatan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Roma. xidigani ayaana Stefan Al-Sharawi suuqa xorta ee dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Roma. Stefan Al-Sharawi wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii sida weyn ay u jeclaayeen taageerayaasha faraha badan ee kooxda kubadda cagta Roma. hadda waxa uu madaxa kooxda kubadda cagta Roma uu xaqiijiyay in Stefan Al-Sharawi uu ahaa go'aankii uu gaaray markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Shanghai horyaalka wadankaasi Shiina in uu dib ugu soo laabto kooxdiisa hore ee Roma. kooxaha aad u fara badan ee ka dhisan
horyaalada Faransiiska, Mareykanka, Imaaraadka iyo sidoo kale horyaalka waddankaasi Raashka ayaa dalabyo muhiim ah ka soo gaaraya inta uu ciyaarayo kooxda kubadda cagta Shanghai, laakiin muddo sanad iyo bar kadib wuxuu go'aansaday ciiraankani Stephen Al-Sharawi in Stadio Olimpico uu dib ugu soo laabto. xidigan Stephen Al-Sharawi ayaa yiri waan ku faraxsanahay xaqiiqdii ku soo laabashadeeda garoonka, waxaan hadda diyaar u ahay inaan qayb ka noqdo ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Roma, waxaan isku diyaarin doonaa shaqo adag iyo inaan kooxdeeda horumar wanaagsan aan la gaaro, ayaa laga soo xigtay xidigan Stephen Al-Sharawi oo sanad iyo bar kadib dib ugu soo laabtay kooxdiisii Roma. Ugu dambeyntiina tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Thomas Tuchel ayaana markaa hadda isku diyaarinaya in kulanka ugu dambeeyaba uu la qaato maalqabeenka kooxdaasi Roman Abramovich uu markaa doonayaba inuu ka dhaadhiciyo in uu u soo maalgeliyo ciiraanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Haaland. Wariyaankani ayaana markaa si weyn u soo jiidanaya qaar ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan tartamada qaaradaas Yurub, laakiin tababarahani cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas ayaana rajo weyn ka leh inuu xilligani uu ka dhaadhiciyo maalqabeenka kooxda kubadda cagta Chelsea arrinta ku aadan in Haaland uu ku wanaagsan yahay waqtiga kan xaadirka in lagu soo biiriyo istaadiyaha kooxda kubadda cagta Chelsea Stamford Bridge, maadaama ilaa iyo hadda dhigiisa ay aad ugu guuxayaan lacagihii faraha badnaa ee Roman Abramovich uu ku maalgeliyay inta uu hogaaminayo kooxdaasi tababarihii xilka laga qaaday ee Frank Lampard, taasi oo qiimihiisa gaaraysay 247 milyan oo lacagta Yuroga uu dhowr ciyaartoy markaa uu kula soo wareegay, haddana sidii uu filayay maysan u muuqanin mustaqbalka kooxda kubadda cagta Chelsea. Balse tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Thomas Tuchel ayaana markaa hadda isku diyaarinaya su'aalo qaar oo wax ka weydiiyo sida suurtagalka marka uu noqon karto Haaland inuu u soo dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Chelsea, maadaama laacibkani uu yahay xidiga uga hadalhaynta badan marka loo eego tartamada qaaradaas Yurub. kooxo waaweyn ee ka dhisan qaaradda Yurub ayaa baaday goobaya ay ka mid yihiin Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Manchester United, kooxda kubadda cagta Manchester City. Balse tababaraha cusub ee kooxda Chelsea Thomas ayaana markaa isku diyaarinaya sidii uu kaga dhaadhicin lahaa bilyaneerkani u dhashay dalkaasi Russia.